السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة إيه برنامج كيني أن كجهد لني بقولك قف قصة ما يتبدل الدنيا ده بوجن أو قري مايكل هارت أو شيء ذلك إسرائيل كلنا ذلك أمريكا كنا تخصصي علمي مرياشة حديثك هذا بوجو قري أيا وحو فلنقي بقولك قف قصة ما يتبدل الدنيا ده وحانو قف كوبات كدجي نبينا الصوبان حريش النبي تقلب كرجيس محمد عبد الله بن عبد المطلب هذا بدأ برنامجكن waxaan ku soo qaadan doonaa qofka galay kaalinta labaad qofka uu doortay kaalinta labaad Michael Hart waxa uu ku sheegay inuu yahay saynisyahankii caanka ahaa Isaac waxaana uu ku sheegay maqaalkiisa Isaac Newton waxa uu ahaa qofka labaad ee aan u doortay boqolka qof ee ugu saameynta badan dunida haddaba saynisyahankan caanka ah oo u dhashay dalka Ingiriiska oo ahaa mid ku xeel dheer cilmiga fiisigiska waxa uu soo saaray xeerka cufisjiidadka oo loo yaqaan Universal Gravitational Force iyo walibana saddexda xeer ee motionka ama se dhaqaaqa uu sameeyo dhulku oo loo yaqaan three laws of motion sida ay tilmaamtay cilmi baaris ay sameysay saynisyahanada dalka Britain Royal Society ayaa Newton waxa uu noqday saynisyahanka ugu saameynta badan dunida iyagoo isweydiiyay yaa saameyn badan Newton iyo Albert Einstein ayaa waxay qarar ku gaadheen inuu Newton ahaa qofkii ugu saameynta badnaa ama saynisyahankii ugu saameynta badnaa cilmiga sayniska kaas oo ah xeerarkii uu dejiyay mid si weyn looga isticmaalo dunidan casriga ah haddaba halka uu kaalinta saddexaad u doortay Jesus Christ amaba se Nabiyullah Ciisa calayhi salaam Hart waxa uu kaalinta saddexaad u doortay Nabi Ciise isaga oo dood fara badan ay ka dhalatay laakiin Hart ayaa sababeeyay sababta uu ugu doortay kaalintan haddaba bal aan eegno liiska oo dhammaystiran raadka uu reebay iyo waxa uu soo kordhiyay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam Isaac Newton physics waxa uu soo saaray xeerka cufisjiidadka iyo saddexda xeer oo socod ah ama loo yaqaan motion Jesus Christ amaba se Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam haddaba daawada barnaamijkan waxaan ku soo gabagabaynaynaa inta assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته